su-aasha isweydiinta mudan ee muddooyinkan dambe laysla dhex maraya ayaa noqotay halka uu ku dambeeyey hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un. waxaa maalmihii lasoo dhaafay aad loo hadalhayay xaaladda caafimaad iyo halka uu ku sugan yahay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi. qaar ka mid ah warbaahinta caalamka ayaa asbuucyadii dambe baahinayay xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha Pyongyang. telefishinka lagu magacaabo HKS TV oo fadhigiisu yahay Hong Kong ayaa ku soo warramay inuu helay xog muujinaysa inuu geeriyooday hogaamiyaha kuuriyada waqooyi. wararka la xiriira geerida Kim Jong Un ayaa sii xoogaysatay toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii bog ay wax ku qoraan dad ka soo baxsaday dalkaasi lagu sheegay in Kim uu u geeriyooday xanuun hayay tan iyo bishii Agoosto ee sanadkii hore. agaasima ku-xigeenka warbaahintaasi ayaa sheegay in ilo lagu kalsoonaan karo ay sheegeen inuu geeriyooday hogaamiye Kim Jong Un, balse ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta wararka uu baahiyey telefishinkaasi. wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan Kim ayaa soo baxaya markii sida la sheegay uu ka baaqsaday ka qaybgalka munaasabad sanad walba lagu maamuuso sanad guradii kasoo wareegtay dhalashada aabihii oo ku beegneed 15 bisha Abriil ee sanadkan 2020. Kim Jong Un weligiis kama uusan baaqan munaasabadda xuska aabihiis, wayna iska muuqatay inuusan si sahlan u go'aansan karin in uu ka qaybgeli waayo. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay ilo xog ogaal ah ayaa maalmo ka hor ku soo warantay in dowladda Shiinaha ay khubaro caafimaad u dirtay kuuriyada waqooyi. saraakiisha caafimaadka ayaa la sheegay inuu hogaaminayay sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga shuuciga ee ka arrimaya dalka China. kuuriyada waqooyi oo ah dal ay adag tahay in laga helo xog ku saabsan madaxda sare ee dalkaas ayaa waxaa adkaatay in la xaqiijiyo xaaladda caafimaad ee Kim. waxaana sidoo kale maalmihii lasoo soo baxayay warar kale oo sheegaya in hogaamiyaha dalkaasi uu galay qalliin dhanka wadnaha ah. waxaa sidoo kale soo baxay warar kale oo iyaguna sheegaya in Kim Jong Un uu nool yahay. dalka ay deris kale yihiin ee Pyongyang ee kuuriyada koonfureed ayaa beeniyey wararka sheegaya inuu dhintay amaba uu xanuunsan yahay hogaamiyaha dalkaasi. Moon Jae-in oo ah sarkaal siyaasadda arrimaha dibadda kala taliya madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa warbaahinta CNN-ka ee dalka Mareykanka u sheegay in Kim Jong Un uu nool yahay uuna caafimaad qabo. ka dowlad ahaana halka aan arrintan ka taagannahay way caddahay, ayuu yidhaahday Moon, oo intaa ku daray in laga bilaabo 13 bisha Abriil uu Kim ku sugnaa deegaanka Wonsan, sidaasi darteedna aysan jirin wax keeni kara shakiga ah in uu geeriyooday. sidoo kale saraakiil ka tirsan sirdoonka dalka China ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in wararka sheegaya dhimashada ay yihiin been abuur oo uu Kim nool yahay. markii ugu dambeysay ee la arkay hogaamiyaha dalkaasi ayaa waxay ahayd 12 bishan. warbaahinta dalkaasina ma aysan sheegin ilaa iyo hadda halka uu ku sugan yahay. ma aha markii ugu horeysay oo fagaarayaasha laga waayo hogaamiyaha dalkaasi. sanadkii 2014 ayaa Kim Jong Un la waayay muddo 40 cisho ah, waxaana taasi keentay in wax la iska weydiiyo halka uu ku sugan yahay. sidoo kale xilligaasi waxaa soo baxay warar kale oo sheegaya in la afgembiyey, hase ahaatee maalmo kadib waxa uu ka soo muuqday warbaahinta dalkaasi. haddii ay dhacdo in Kim uu meesha ka baxo, sidii ay doontaba ha ahaatee ma cadda cidda bedeli doonta. Kim waxa uu xilkaasi ka dhaxlay aabihii oo sanado badan hogaaminayay dalkaasi, waxaana muuqata in dhaxalka dhanka xukunka ee dalkaasi uu yahay mid uusan cid kale damac ka geli karin. gabar ay walaalo yihiin Kim Jong Un oo lagu magacaabo Kim Yo Jong ayaa u muuqata qofka iska leh dhaxalka dalkaasi, maadaama ay walaalo yihiin aadna ay ugu dhowdahay walaalkeed. waxaa sidoo kale la sheegay in ay saameyn ku leedahay xukunka dalkaasi. xaaladda dhabta ah ee hogaamiyaha kuuriyada waqooyi waa mid kala cadaan doonta mustaqbalka dhow. taliska dalkaasi ayaa ah mid aad looga baqo, halka shacabkuna ay dunida inteeda kale ka xirxiran yihiin, taasoo yareynaysa wararka laga heli karo gudaha dalkaasi. balse nidaamka ka jira kuuriyada waqooyi ayaa ah mid loo adeegsado ciqaab kala duwan oo cidna aan caqligeeda ku soo dhacayn. waa marka uu goosto in uu ciqaabo shakhsiyaad mucaarad ku ah nidaamkiisa ama farta lagu fiiqo oo aan si dhammaystiran u taageersanayn hogaamiyaha keliya ee waddanka Kim Jong Un. sida ay sheegtay jariiradda Mirror ee ka soo baxda dalkaasi Britain, jenaraal ka tirsan ciidanka oo magaciisa aanu la sheegin ayaa xilli dhoweyd waxaa lagu dilay waddo u eg mid lagu soo bandhigay filim uu hadda
ka hor jilaaga caanka ah ee James Bond. Generaalkan oo lagu tuhmay inuu waday inqilaab military ayaa waxaa lagu riday barkad uu ka buuxo kalluunka dadka cuna ee lagu magacaabo Albirana, laakiin ciqaabta la marsiiyey inta kuma aysan ekeen, balse inta aan kalluunka loo tuurin waxaa laga jaray gacmaha iyo xubno kale oo jirkiisa ka mid ah si aanu dhaqdhaqaaq u samayn marka uu kalluunka hilibkiisa kala goosanayo. Khabiirka arrimaha Aasiya John Jimenez ayaa waxa uu u arkaa in nidaamka diktatoriga ay u fakiraan in hababka ay dadka u dilaan ay tahay layli muhiim ah si ay gacan bir ah ugu qabtaan xukunkooda dadka kasoo horjeeda. Sanadkii 2017 ayaa mas-uul Kuuriyada Waqooyi ka baxsaday uu ku qasbanaaday in uu ka qayb galo dil lagu fulinayo 11 fannaan oo lagu dilay hubka diyaaradaha lagula dagaalamo. Sidoo kale waxa uu sheegay in fanaaniinta ay ku eedeysnaayeen in ay ka qayb qaateen filim anshax darro ah. Wakaalada wararka ee Japan ayaa soo xigatay in 4 mas-uul xabad lagu dilay kadib markii uu fashilmay shirkii hogaamiyaha Kim iyo madaxweyne Trump. Mas-uuliyiinta ayaa lagu eedeeyey in ay macluumaad muhiim ah u gudbiyeen dhanka Mareykanka, arrintaasi oo keentay in uu shirku fashilmay. Shirkaasi oo Kim Jong Un uu ka filayay in looga fududayn doono cunaqabataynta xooggan ee in muddo ahba dalkiisa saarnayd. Hababka uu dadka u dilo waxaa ka mid ah inuu u tuuro ey gaajeysan. Dhanka kale, eedadii waxay wax ku dishaa sunta kadib markii ay dhalishay habka uu wax u dilo wiilka ay eedada u tahay. Si kastaba ha ahaatee, wadanka dunida inteeda kale ka go'doonsan siyaabaha ugu dhibka badan ee dadka loo dilo waxaa ka mid ah in qofkii oo nool la gubo amaba dab lagu shido amaba